السلام عليكم ورحمة الله ولا لا شرفت الوصل مالك كسر هذا برنامج كنا ولا شنبتها إنكي صباح الخير إديكيشن ما أنت دور كمر كان دكاني قبل سوماليات يا نركي waxay igu tiri ani waa hubsaday caruurtayda aan qurbaha ku dhalay dhaxalkooda waa hubsaday meel baan ku ogahay cid kale oo ka qaadan kartana ma leh marka gabadhii baa adii na dhex martay hadal runtii waxaan rabay inaan ka duubo laakiin xoogo waa ka cudur daaratay marka walaalaha sharaftan arrintaasaan rabaa insha allahu tacaala inaan la qaybsado idinkan ummadda soomaali u sii qaybiya si marka carruurtan qurbaha aan ku dhalnay mustaqbalkooda aan ugu fikirno oo annaga hadda homeless aan nahay ayagoo homeless aan ka dhimanin intaa ka hor walaalaha sharafta leh waa aniga aad igu barateen keliya xanuunka keliyaha runtii waa waxa ugu muhiimsan oo bini aadamka ku socda weeye wasaqdaadoo dhan ay bannaanka u soo saaraan wixii mataqana jirka u baahnayn marka dhowr qof ay soo wacaysa meeshii ii dhaafaysa runtii mataqaanaa keliyaha ka xanuunsan hadda wiilka ugu dambeeyey wuxuu mariyey 21 GFR-ka EGFR-ka waxaa la yidhahdaa waxa dhiigga markii lagaa qaado dhakhtarika ay ku cabiraan keliyahaada meesha ay marayaan shaqadooda 21 marka wuxuu joogaa India markaan waxay ku yiraahdeen 6 bilood ka bacdina dhaqitaana lagu bilaabayaa marka walaalaha sharafta leh waxaa weeye dhaqitaanka 10 wixii ka hooseeya ama 10 ka bilaabata dhaqitaanka qafka lagu bilaabaa marka laakiin waxaa loo baahan yahay inaad limit garayso ood iska ilaaliso waxyaalaha dhakhtarka iska ilaali ku dhahay si anigaba hadda 4 sane ayaan mataqaanaa ayaan saas u ordayaa oo deewaanigii indhahay 60 jirkii malakamoodka ka cararay wiilkan Soomaaliyeed marka aad buu u walwalsanaa waad arkaysaan boorsadaydu waxay kulli biyayda ay ugu jiro saasaan u cararaa marka ugu yarta maalintii 10 kun aan socdaa marka ugu yarta haddii kale 20 kun 30 kun oo tilaabo waa altilisa 2 saac iyo 2 saac bar meelahaas wey wiilkaas 21 uu maray EGFR-ka anna meeqaan maray 24 aan mariyay kaliya markay shaqaynayaan boqolkiiba boqol loogu talagalay marka waxaan ku yiri ayarkoo soo noqo dalka ku soo noqo walwalka iska daa maxaad cuntaan ku yiri wiilkaan caan oo cabayay hilibka aadaan cunaa u yiri oo dhaylaha waliba mataqaanaa cusbada iyo saliidda sokortana waxaa iska cuni jiray marka waxaasoo dhan ala kulaal wiilkii wasabkan ka wada hadalnay waxaasoo dhan joojiyan ku yiri biyana cab lugtana badso mataqaanaa ilaahaygaadana isku xir keliyahaadu weli waa shaqaynayaan dadaa runtii 15 ku socdaan ilaa hadda marka maamadu haltaan nala joogto 15 ay ku socotaa intaasoo sano laakiin maxaad u baahan tahay potassium-kaada inaad ilaaliso potassium-ka waxaa waaye waa mineral jirkaada u baahan yahay laakiin mar haddaad keliya xanuun aad qabtid yacni dhib kuu keenayso waxaa laga helaa sida tomatoga oo kale spinachka oo kale sida baradhada oo kale laga helaa marka haddaad keliya xanuun qabto yacni uma baahnaydba mataqaana bataato iyo spinachka iyo caanaha iyo mataqaana waxaasoo dhan uma baahnid marka kulley wixii ilaahay markaas iga garansiiyoon ana akhriyey ayaan wiilka asagaa u diray marka walwalkana jooda dalkan ku soo noqo 6 bilood lagaa dhaqaala shaqada waxba kama jirtan ku yiri marka qof kasta waxaan leeyahay potassium-ka iyo phosphorus-ka iyo protein-ka inaad ilaalisid weeye mar hadda protein-kaada lagu dhaha karatiinkaana kor buu u kacsan yahay si karatiin kor u kacsan yahay GFR-kaada hoos ay u soo dhacaysaa GFR-kaada hoos ay u soo dhacaysaa marka waxaa lagaa rabaa inaad protein-kaada iyo waxa la cuntada protein-ka laga helo ma limit garee potassium-ka cuntada laga helo limit garee hadda kale iskaba joojiba markaan qudaar fara badan meesha ayaa taala cunto fara badan oo la cuni karaa jirta hilibka oo kale dhimala wiigaba hal mar aan waa cunaa waaga hormar aan joojin laakiin dhakhtarku uu yiri ma jirkaada u baahan wiigaba hal mar waa cuni kartaa hilibka oo kale marka laakiin cunto badan oo Soomaaliyeed meesha tuban sidii waad ogtihiin waaga hor aan cuni jiray mataqaana galeyda digirta qamidida waxaasoo cuntadas waa cunto aan cuni jirin wiligan laakiin Soomaaliya bariyahan way ka tageen oo bariis iyo baasto iyo waxaas maal raba marka waxaan kaaga digayaa potassium-ka faraha badan yaray cusbo iyo saliid iyo sokorno iyo qaxwo iyo shaah iyo baastana halkaas iska dhig walaalkay marka taas waa kaliya mid ku saabsan mid kale waxa weeye gabadhan Soomaaliyeed walaalaha sharafta la kulmay maanta way maantada gabadha marka waxay igu tiri dalkii baan ka yimid gabadhan Soomaaliyeed markaasaan ku yiri dalka meeqa sano ku manayd dhowr sano waa ku maqnaa taasoo sano marka
dalka maxaad ka haysaan ku yiri waxay igu tiri dee xagga bashari waxaan ka bilowday alxamdulilah markaasaan ku intaadan guurin ka hore halka gurigaada ma gadatay markaas ay igu tiri gurigeeda intaanan tegin ka hore gacantaan ku dhigi waa gatay waana kirida lii soo diri jiray kiridii lii soo diray iyo wax yaroo isku dardarsaday ayaan xagga ku noolaa oo mataqaana aan wax ku bilowday marka hadda maantana alxamdulilah waa soo noqday gurigeedaan ku soo degay marka qololna waa kiraysan yihiin gabadha waa aqliga badan oon hadda ilaa hadda soo martay weeye gurigeeda mar hore ay gadatay waa goormaa mar hore ay gadatay markay gacanta ku dhigtay ka bacdi yay dhaqaajisay oo dalka aadi markaan waxay tiri ani markasta waxaa muhiim ii ahaa carruurtayda halkaan ku dhalay inay wax iga dhaxlaan gurigeedii caadi marka waa soconaynaa insha allah walaalaha sharafta leh calaykum salaam brother okay alxamdulilah marka gurigeedii gacantay ku dhigtay waxay tiri marka ani carruurtayda dhaxalkoodii meel baan ku hubsaday waxay igu tiri anigu waxaan ogaa haddaan halkaas guriga ka dhiso hadda guri waa ka dhistay idhahdee oo becsharaan ku leeyahay laakiin waxaan ogaa guryahaas halkaas ka dhisay inay qaraabada qaadan doonto mustaqbalka hataa haddaan ka dhintoon carruurtayda ugu dardaarmo carruurtayda inay usoo guureen ogay tiri xamar reer xamar way gabadha inay xamar usoo guureen iska ogay tiri marka gurigayda markaan gacanta ku dhigi aan kiraystay mataqaanaa carruurtayda qaarkood ay guursadeen yaan ani ka tagay berri haddaan dhinto gurigan ayagaa iskaley tiri waa hubaa marka saas waxay u leedahay yuusiikum allahu fii awlaadikum war ilaahay subxaana wa tacaala carruurtiina idiin dardaarma ilahay soo sama dhahay dhaxalka ayagaa iskale dhaxalkan waa ku qasban tahay carruurtaada inay qaataan qaar barkood soomaalida waxay leeyihiin me carruurtan ingiriis ay joogaan maraykan ay joogaan shaqa ay heli karaan waxaa ka daran abti iyo habaryar iyo adeer iyo ka daran maya kama darno carruurta qurbaha lagu dhalay dhibka haysto ciday haysta male meeshaas carruurta stress ma haysta dalkoodii ay joogaan walaalnimo u xariiri qaraarnimo u xariiri becsharay u bilaaw ways adag u wada sii laakiin walaalkii ani waxaan kugula talinayaa sida gabadhan soomaali oo kale marba hadda dalka ka maarmin labada meeloodba deg labada meeloodba ilaahay hadda gabadhan waxay tiri intana gurigan ku leeyahay haggana gurigan ku leeyahay marka labada meelood waa tagaa alxamdulilah waxaan marka hadda ka walwalaana male laakiin waxay tiri runta markaa idiin sheego meesha afrika wax mustaqbal ma leh gabadhan meeqaa sano ay maqnayd intaasoo sanay maqneed waxay tiri meesha halka markaan soo arkay cusmaanow meesha mustaqbal fiican ma lahayta ilaahay wax u soo saara mooye meel hadda la dhihi karo waa lagu noolaaya malaha aniga haddaan ilaahay subxaana wa tacaala uma i waafijiyey tiri aniga waagaas sidaan cid ii sheegta malaha ilaahay waafijiyey inaan gurigan gato oon kiraysto oon maanta homeless ana gurigeeda kusoo noqdo meeqaa sanoy maqneed gabadhaas intaasoo sanay maqneed markaan adiga marka maa xal kuu marka adiga waa riyoonaysaa marka adiga waa riyoonayna waxaan leenahay ani dalkan waan ka socdaa waxaan u socdaa mataqaanaa dalkii baan u socdaa dadka barkiisa aqliga gaaban walaalaha sharafta leh ilaahay magaciisaan ku dhaarno wallaahi ah maanta gabadhan waxay ii sheegtay waa xaqiiq oon aad iyo aad ugu bogon ku farxay weliba oon weliba u ducoy aad iyo aan ugu ducoy sababtoo carruurteedii yay ka fikirtay dhaxalkoodii yay ka fikirtay adigana hargeysa guri weynaas ku leedahay xamar guri weynaas ku leedahay jigjiga kasii daran jabuuti kasii daran maxay ahayd addis ababa nairobi marka waxaad ku faanaysaa carruurtayda guriga xagga ugu dhisayo waa tegayaan war waxaan kuu sheegayaa carruurtaada markay nafta ka baxdo walaalkay walaashay lagama yaabo inay meeshaas tagaan carruur hadda ka hor aan interview leeshta waxaan ku yidhi nairobi markaan kusoo arkay aan ku yidhi haddii aabihiin iyo hooyadiin dhintaan waxaan ku yidhi ma liin soo celi haa maraykan miyaa linka keena haa waxaan ku yidhi ma rabtaa inaad noqotaan waxay ku yidhi as soon as possible markaasuu aabihiin iyo hooyadiin hadday diidaan bal ka warrama waxay igu yidhahdeen we wait till they die imagine cunugaada wuxuu sugayo death dhimashada sugay because hadda xoogaad ku haysaa meeshii xoogaad ugu haysaa ma fahantay markaasaan ku yidhi markay dhintaan ma noqonaysaa waa noqonaynaa haye guryaha meeshaan ka dhisaan guryaha halkan ka dhiseen hooyo aab marka ayaga laftooda dhintaan guriga waa umaanaynaa waa gedanaynaa waana guriga xaggan guri ka dhisanayna maraykankan annaga ku dhalani halkaasaan guri ka dhisanaynaa haye adigana waa riyoonaya waxaad leedahay carruurtayda gurigaas degay waa kuwii la kixiyay agow marka agowday carruurta in la kaxay oo diintooda labsado dhaqankooda dalkooda kuwayda ani ka haystay kuwayda ayaan ka haystay taasida waa gooni waxa isku qaldi waxa carruurta in dalkii la geeyay in mataqaana meeshan wax looga gada waa kala yihiin hanti halkan u hagaaji laakiin dalkii waa muhiim dadaan awoodin oo geeyni karina mataqaana ayagana hadda daaleen inta tabartooda oo ha ka fikireen mustaqbal mataqaana diintooda iyo dhaqankooda iyo halkan maal ha geliyeen laba macallin u qabsi macallin dugsi oo dhab ah oo live imid online
marka ilaahay subxaanahu watacaala ummaddeena xaqa allah kusoo duwo dadkeena qurbaha jooga runtii carruurtan uma soo joodaan ilaahay subxaanahu u soo joodiyey walaalaha sharafta waa socodkeena caadiga ahaa markaan ina linafsika calayka xaqu yiri nabiga sal allahu alayhi wasalam naftaada xaq buu xaqeeda sii socod badan suubi ajiimka tag cusbo iyo saliid iyo sokor iyo baasta iyo bariis iyo mataqaanaa qaxwo iska jooji haddaad xanuunsan tahay horey u soco noloshaada insha allahu tacaala wax baa iskaga bedeli doona alxamdulilah anisaan idiin sheegay hadda sokorti waa liiga waayay mar dambe kaniinka waa liiga joojiyey saan idiin sheegay alxamdulilah cholesterolki waa baxay waxa biso hadda aan focuska saaro waxa waaye biyaheedina aad u badiyay keliyaheeda weli kor u soo kacaan because weli waa liitaan 30 ay mar hadda 30 laakiin meeshii joogeen waa ilaahay iga soo kicay subxaanahu watacaala sabab aan kala imaadaanay laakiin ilaahay soo marka walaalaha sharafta leh gabadhan Soomaali ku dayshay leedahay ha lagu daydo gurigaada markaad dhisatid oo qabsad oo gadatid ka bacdi markaan dalkii u soo jooso. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.